السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. داود وكسود وهذا channel كنا سويال كميديا قضبدين واوين ما انتو حاي كليهين لولا كينيا جيبوتي يقولها أمان كولو كلا بحي فاين دايرا داياكو مقل دونتان قضبدين كلان وحا كامدا مدحوين المسبيح وفافايي شركة كدعي جيبوتي magacaygu waa Masalax Masiifan haddaan u cusubtahay channel-kan subscribe na saar si aad la socoto wararkeena iyo warbixinadeena ugu dambeysay adigoo mahadsan haatan ku soo dhawaada warkii faahfaahsan kursiga aan joogtada ahayn qaaradda Afrika ee golaha ammaanka ee qaramada midoobay oo ay tartan adag kala gashay dawladda Djibouti codantii la soo gabagabeeyay ayay Kenya kursigaas ugu guuleystay Djibouti waxayna heshay 29% cod iyadoo laga doonayay inay hesho 28% cod halka Djibouti oo loola meesay ay heshay 62 cod digaan aan joogtada ahayn qaaradda Afrika ay ku leedahay golaha ammaanka ee qaramada midoobay waa markii saddexaad oo ay Kenya ku guuleysatay waxayna ku sii fadhi doontaa labada sano ee soo socota Kenya ayaa sidoo kale xubin ka ahayd golaha ammaanka 1973 madaxweynaha Djibouti Ismaaciil Cumar Geele ayaa shalay si faahfaahsan uga hadlay loolanka kala dhaxeeya Kenya ee ku aadan tartanka ay labada dal ugu jiraan kursiga aan joogtada ahayn ee golaha ammaanka ee qaramada midoobay oo sanadkan ay u tartamayaan labadaas dal madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi ayaa shalay ku soo laabtay caasimadda Somaliland ee magaalada Hargeysa ayaa ka hadlay shirkii maalmihii ugu dambeeyay u socday dalka Djibouti madaxweyne Muuse Biixi ayaa si cad u sheegay in shirkaasi ay ku kala kaceen xilli la isku mari waayay qaar ka mid ah qodobada lagu doodayay waasoo ay ku adkeysanayeen guddiga Somaliland madaxweyne Muuse Biixi ayaa sheegay in dawladda Djibouti ay soo kala dhex gashay kadib markii labada dhinac ay kala kaceen shirkaasi isla markaana ay qasabtay in qodobo hor dhaca ay soo saaraan Muuse Biixi ayaa xusay in mas'uuliyiinta u matalaya dawladda federaalka inaysan ahayn dad fahansan waaqica laga doodayo iyo waxyaabaha la isku haysto xilli mas'uuliyadda shirkaasi uu ku wareejiyay madaxweyne Farmaajo sidoo kale Muuse Biixi ayaa sheegay in shirkaasi ay goobjoog ka ahayn dawladda Djibouti iyo Mareykanka oo iyagu lahaa abaabulka shirkaasi isla markaasna suurtageliyay kulamada ka socday dalka Djibouti shanta qodob ee laga soo saaray waa guddiga farsamada ee dawladda federaalka Soomaaliya Somaliland ayaa ah kuwa aan micno badan lahayn isla markaasna aan si toos u baaraynin waxyaabaha dhabta ah ee isku mar laayeen labada dhinac gudahantaas ay ku soo gabagabeynaa wararkeena maanta warka xigta kulmi doona waxaan kaga tagay sidaas iyo amaan Allah